waxay i weydiiyeen maxaad ka baratay qur-aanka. Waxaan uga jawaabay, qur-aanka wuxuu i baray inaan ku tiirsanaado keliya allaah qaadirka dhammaan arrimaha nolosha. ruuxii allaah talo saarto isagaa ku filan. qur-aanka wuxuu i baray inaan nabadda faafiyo, dadka iga tabarta yarna aan u qabto waxa aan awoodo, kuna sabro wixii isoo gaara oo dhib ah. qur-aanka wuxuu i baray inaan cadaalad ku taagnaado xataa haddii ay dhibayso cadaaladdaas ehelkayga, inaan runta sheego xataa haddii ay dhibayso nafsadayda. qur-aanka wuxuu i baray inaan qariyo dadka kale ceebahooda. qur-aanka wuxuu i baray kuwa bixiya sadaqada habeen iyo maalin, qarsoodi iyo si muuqataba, waxay ka helaan ajarkooda allah agtiisa. waxay ka cabsadaan ma jiraan, mana murugoodaan. qur-aanka wuxuu i baray allaah inuu u dembi dhaafo qof walba oo toobad keena, dembigiisa intuu rabo hala ekaadee, sababtoo ah allaah naxariistiisa ayaa ka weyn dembi walba oo aad gasho. qur-aanka wuxuu i baray in ficilka wanaagsani iyo ficilka xumi isku mid aanu ahayn. wixii xun oo aad ficil wanaagsan ku beddeshaa, cadowgaaga ayaa noqonaya sidii saaxiib dhab ah oo laabta kaa jecel. qur-aanka wuxuu i baray addoommaha dhabta ah ee ugu naxariista badan waa kuwa dhulka ku dul socda, oo markay kuwa jaahiliinta ahi ay la hadlaan jawaabtoodu tahay nabad. qur-aanka wuxuu i baray ereyada kalgacalka iyo naxariista lahi waxay ka fiican yihiin sadaqo la raaciyey xumaan. qur-aanka wuxuu i baray wanaag ayaa u sugnaaday kuwa wanaagga fala adduunyadan, allah dhulkiisuna waa waasac. qur-aanka wuxuu i baray camalka wanaagsani wuxuu masaxaa camalka xun. qur-aanka wuxuu i baray inaan kula dhaqmo wanaag bani'aadamka oo dhan. allaah wuu jecel yahay kuwaas ku dhaqma wanaagga, wuxuuna ku abaalmarinayaa abaalmarino aad u weyn samaynta ay sameeyeen camalka suuban. qur-aanka wuxuu i baray inaan ku baraarugo waqtiga oo aan isku dayo inaan uga faa'iidaysto wax walboo wanaag ii ah. qur-aanka wuxuu i baray in midkeena midka kale uu runta u sheego, inaan xanaaqin iyo inaan cafiyo qaladka la iga galay. qur-aanka wuxuu i baray inaan si fiican ula hadlo dadka iyo in aan ka doorto erey walba ereyguu ka fiican yahay.